بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. داوديال كسو دوادا برنامج كمان قولين ميل والبا دونيدا كداونيسان. برنامج كمان قولين وبرنامج aan kusoo qaadano murtidaas oo gool samaan kayaga ana ka helna dhiirigelin in dhaqaashisa oo na gaarsiisa meel dhaadheer ee noogu jirto dheef adduun iyo mid aakhir labadaba. waxaan dhahnay markii hore naftu waxay ka dhalatay ruuxda. haddana waxaan leenahay nafta waxaa ka dhasha shakhsiyadda personality-ga waana mid aan maanta aan xoog saarano ah soul and personality aan ka hadalno macnaheedu nafta iyo ruuxda. marka personality-ga bini aadamka markuu dhashaba intuu kobcayo oo weynaanayo cilmiga iyo aqoonta iyo khibradda iyo waxyaalaha uu soo marayo dhacdooyinka noloshiisa uu la soo kulmayo ayaa qofkii shape garaynaysa oo qof shakhsiyad la ka dhigaysa. shakhsiyadaas oo noqota afarta qaybood mid ka mid ah. marka waxaan ka dhignaa waxaan ku siinay afar qaybood oo aan kugu soo koobay ereyga star. marka type S iyo type T iyo type A saasoo kale aan kugu wadayaa afarta qaybood. marka waxa la yiraahdaa qaybta koobaad waa type S qayb la yiraahdo. type S waxa waaye qayb shakhsiyadda bini aadamka kamid ah ama shakhsiyaadka bini aadamka kamid ah. marka aragti bini aadamka qaab dhaqankooda ay u shaqeeyaan aad ka arki doontid oo ah qayb jecel structure-ka. waxay jeceshahay mar walba nidaamka, waxay jeceshahay organization-ka, waxay jeceshahay management-ga. waa naf macnaheedu shakhsiyad jecel low and order-ka waxa la yiraahdo kala dambeynta jecel. waana naftaas waxa la yiraahdaa waxay ku shaqeysaa mar walba sida dhulka kala waayo sugnaanta jeceshahay, ammaanka jeceshahay, nabadgelyo jeceshahay. waxayna intaa ku sii kartaa amarka ku sii kartaa oo macnaheedu waxay naftaa ka shaqeynaysaa waxa waaye inay dhahdo ay qaadato mas'uuliyadda wixii ay dhistay maamulkii israabga ay dejisay bay jeceshahay inay mar walba dadka kula shaqeyso oo waa naf ka shaqeyn mar walba macnaheedu jecel communication-ka jecel responsibility-ga jecel saan sheegnay low and order-ka jecel way. naftaa marka waxaa dhiba fowdada dhibta, waxaa dhibta kala daadsanaanta, waxaa dhibta communication la'aanta, waxaa dhibta غير mas'uulnimada dhibta. marka shakhsiyaadka bini aadamka markaa fiirisid dad waxaa ka arkaysaa naftoodu ay ku tarbiyooday oo shakhsiyad qurux badan ay soo baxday oo mar walba low and order-ka iyo nidaamka ka dambaysa. waxaana moodaa shakhsiyaadkan oo kale waxay aad ugu badan yihiin wadamadan hadda aan joogno oo qurbaha ah bay aad ugu badan yihiin. haddaa marka fiiriso shakhsiyaadkaas ay u nidaamsan yihiin ama shirkadahoodu u nidaamsan yihiin ama dowladoodu u nidaamsan tahay macnaheedu tacajab. waa dad mar walba ka dambeeya management-ga, ka dambeeya macnaheedu responsibility-ga, ka dambeeya communication-ka oo hay-adahooda iyo departments-ka macnaheedu hadday shirkad tahay si u kala dambeeyaan si warka u kala qaadanayaan. waxaad arkaysaa inay mas'uuliyad iyo xilkasnimo iyo maaragtay nidaam uu meeshii uu ka jiro. taybka labaad oo shakhsiyadda oo bini aadamka markaa fiiriso aad ka helaysid oo ka dhalanaysa mar walba naftaas bini aadamka ka dhalanaysa waxa weeyaan qaybta la yiraahdo qayb kale oo ah technical-ka waxa la yiraahdaa qaybtan waa qayb ka dambaysa knowledge-ka, waa qayb ka dambaysa xisaabaadka iyo nambarada. waxa la waa analytic mar walba waxay fiirisaa numberska fiirisaa. waa qaybaha ku shaqeeya spreadsheet-ka. qaybtaana badanaa waxay ka mid tahay qaybaha macna bini aadamka ama shakhsiyaadka jecel waxyaalaha engineering ama dhakhaatiirta laga helaa. waa shakhsiyad mar walba ka dambaysa detail-ka, waa detail oriented. waxay jeceshahay wax walba step by step inay qoran yihiin ay cad yihiin. mar walba waxay fiirinaysaa nambarada, waxay jeceshahay sawirada wixii inay sawir ku aragtay jecesha. waxaana aad uga shaqeeyaa la yiraahdaa saan sheegnay dadka injineerada iyo dadka dhakhaatiirta laga helaa. qaybtii hore badanaa waxaa laga helaa ay ku badan tahay qaybta structure-ka iyo nidaamka iyo waa dadka laga helaa boqorada oo kale ah ama dadka madaxda ah ayaa laga helaa ama dadka culimada ah ayaa laga helaa. mar walba waxaa sameyn bay tii hore ku shaqeysaa. tan laakiin iyadoo waxay ku shaqeysaa ay tusi oo ay taabsi
oo wax walba samee kaliya hay dhihine reasoning-ka i tus say waxaan u imaadeen say waxaan u shaqeeyaan bottom line-ka muxuu yahay numberskaas mar walba ku shaqaynaysaa waa qaybta labaad oo aan dhahnay waa type T shakhsiyadda saddexaad waa shakhsiyadda ah type A waa shakhsiyad ah action oriented waa macnaheedu shakhsiyadda jecel mar walba xorriyadda freedomka jeceshahay shakhsiyaddan waxay jeceshahay wax la yiraahdo inay mar walba ay hesho macnihii open space waxay jeceshahay inay buuraha ha aado badaha ha aado waxay jeceshahay xorriyadda jeceshahay waxaa la yidhaha shakhsiyaddan waxaa ku badan dadka jecel sportiska iyo dadka jecel maxaan ku idhaahdaa fanka ama macnihii suugaanta jecel dadkaas mar walba waa dadka dhex gala waa dad ku fiican waxa la yiraahdo saleska waxay ku fiican inay dadka wax ka gadaan fikrad inay kaa gadaan ama maaragtay ay kaa gadaan macnaheedu ganacsi waa ku fiican yihiin macnaheedu shakhsiyadaas ku fiican shakhsiyadda waa shakhsiyad dhexgalka jecel dadka mar walba inay dhex gasho bay jeceshahay waa shakhsiyad ay caadifadeedu ay hay tahay oo haddii aragtay maalan qof dhiban isla markii ku ordaysa oo jecel inay caawiso ama haddii aragto qof faraxsan farxataankii la wadaagi karta waa macnaheedu shakhsiyad mar walba caadifadeedu ay ku xiran tahay bulshada iyo surroundingkeeda ay ku xiran tahay waxaa la arkaa haddii aragto meel environment hostile ahna inay isla markii macnaheedu qaybta ay ka qaadato ay ku orodo oo macnaheedu gurmad u gasho oo dagaalkii horeyba ka qayb gasho haddii aragto qayb macnaheedu environment ama meel macnihii beeyaa iska degan iska xasiloon marba waxay la socotaa jawiga markaa jira iyo waxa markaas ay naftu iyo xaaladdu markaa u yeerto naftaan waxay jeceshahay waxa la yiraahdaa advertisement-ga xaysiinta saan sheegnay saleska xaysiinta aad u jeceshahay inay maanta wax kuu sharaxdo wax kuu sheegayso kuu sheekeynayso maaragtay waxyaalo badan ay kaala hadlayso maanta dhan way gabayaysaa way heysaysaa way sheekeynaysaa macnihii waxyaalahaas macnihii bini aadamku uu jecel yahay dhan bay ka hadli kartaa waxay jeceshahay inay masraxa soo istaagto oo ama gabaydo ama ay haysto ama wax ay sheegto waxay kaloo jeceshahay macnihii meelahaas aan sheegnay public speaking-ka oo waaweyn xitaa way ka hadlaysaa naf cabsata maaha waa naf iyadu mar walba farxitaankeedu uu yahay dadka ku dhex jirkooda waxaa iyada dhiba marka la yidhahdaa isolationka waxaa dhiba gooni socodka waxaa dhiba maaragtay kelinimada dhibta naftaas shakhsiyadda afraad oo noogu dambaysa ee shakhsiyaadkan ka hadlayno shakhsiyaadkana la soco dad baa waxay gaarsiiyaan macnihii personality types ilaa 16 la gaarsiiya ilaa 16 la gaarsiiya laakiin afartan bay isugu soo aruurayaan afartan bayna ka sii farcamayaan marka qaybtana noogu dambaysa waa qaybta la yiraahdo macnihii relationship type personality waa shakhsiyad mar walba qiimaysa oo jecel calaaqaadka iyada iyo dadka ha ahaadaan مثلا calaaqaad labada qof oo isqabta ama calaaqaad labada wada dhalatay ama calaaqaadka dad maaragtay qaraaba ama calaaqaadka macnahaas community hall oo kale ama calaaqaadka qaran ahaan oo kale waxay noqotaba waa naf shakhsiyad mar walba jecel dadku inay isku imaadaan macnaheedu isu waramaan wada sheekaystaan wixii dhiba maaragtay meel uga soo jeestaan wixii dheefa wada wadaagaan waa shakhsiyad jecel significant wax la yiraahdo in la hormaro wax la noqday jeceshahay shucuurteedana mar walba waxay ku qiimaysaa qofka marka ay taqaan waxayna mar walba jeceshahay qofkan inuu noqdo qof qiimo badan oo wax noqda waxaa laga yaabaa shakhsiyaddan inay teeda ilowdo oo ayna wax kala qabanba maanta ay ka fakaraysa مثلا ama uu ka fakarayo ilmihii uu dhalay dadkii la dhashay wadankii uu dhashay haday gabar tahayna ama hooyo tahayna ilmihii ay dhashay dadkii la dhashay dadkii macnaheedu dhalay waxaas bay aad uga fakaraysa mar walba hamigeedu waxa weeyaan iyo fakarka shakhsiyaddan waxa weeyaan dadkaadii ama dalkaadii ama diintaadii calaaqaadkaas bay jeceshahay mar walba waxay jeceshahay xiriirka iyada nafteeda iyada dadkeeda iyaga diinteeda shakhsiyadda jecel weeyaan shakhsiyadda waxa marka dhibta la yiraahdaa kelinimada waxa dhibta khilaafka waxa dhibta macnihii waxa la yiraahdo fawdada iyo dagaalka waxyaalahaas way dhibtaa waxay jeceshahay mar walba nabadgelyada iyo xasiloonida iyo macnaheedu horumarkay jeceshahay marka afarta aan sheegnay waa afar bini aadamka suu badan yahay ay u qaybsamaan
qofku waa laga yaabaa inuu mid ka mida uu noqdo oo maalan tii structure ka ahayd oo macnihii nidaamkii organizationka jecel inay noqoto ama waxaa laga yaabaa inuu laba uu ka noqdo maalan technicalka oo laftiis uu qaato oo qof analytic ahoo macnihii nabarada ku fiican oo detailka jecel inuu noqdo waxaa kaloo noqon karta maaragtay inuu noqdo qaybta macnihii saddexaad oo mar walba actionka jecel oo maaragtay xorriyadda iyo freedomka jecel waxaa kaloo uu noqon karaa macnihii qaybta hadda ugu dambaysa aan ka hadlayno relationshipka waxaa la yidhaahdaa dadka qofka ay ku kulanto badanaa ma dhacday dhahan laakiin waa feereer aad u yartahay laakiin qofkii ay afartan ku kulanto waa dadka mar walba successfulka noqda oo aad ugu guulaysta nolosha oo noloshoodu ay dheelitiran tahay oo dad mararka qaarkood aan la yaabayso waxyaalaha ay qabanayaan مثلا qof baa wax laga yaabaa 10 shirkadood 15 shirkadood inuu manage gareeyo ama ka badanba shakhsiyad qaarkoodna hal shirkad ma manage gareyn karto iska daa naftiisa ma manage gareyn karto qofkaas oo kale waxa uu leeyahay waa dadka macnaheedu afartan qayb macnaheedu ku fiican oo meel fiican gaara waxaan dhahaa dadka bini aadamka intooda dhameystiran ilaha dhameystiran laakiin inta bini aadamka macnaheedu takaamulka gaartay oo kale bay dhahan rasuulkeenana qayb kamid bini aadamku sheegay uu yiraahdo مثلا ay khadiijo ka mid tahay kale مثلا inay dadka macnaheedu ay dhameystiran ay yihiin afarta qaybood oo aan ka sheekeynay oo ay u qaybsato macnaheedu personality-ga ama shakhsiyaadka waxaa jirta cudurro ku imaada cudurradaas oo curyaamiya qofka bini aadamka waxaa la yiraahdaa ilaahay baa wuxuu ku abuuray fidro ijtimaaci inuu qofka bini aadamka mar walba bulsho uu la xiriiro oo bulsho uu ku dhex noolaado qofka bini aadamku banaanka kaliis kuma noolaan karo macna xayawaanaad kale lama noolaan karo wuxuu ku qasbay inuu bini aadam la noolaado uu ku dhex jiro marka cudurro waxaa ku dhaca marka ka imaada shakhsiyaadkaas oo la yiraahdo personality disorder ka saddex qaybood loo qaybiyaa dad way ka sii bataan laakiin saddexda ugu muhiimsan oo annagana anfici karaan ka soo qaadanayna